السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعلى عامر حسن كسر هذا مركل أي مقال عصب إن شاء الله تعالى وحن إنا وحكش قدونا يا دي إلهي راهو دوين كسيدة خلدان لو أديك صدو لو استعماله إن محالة بها ليسكو قرحيو دمركو أديك سدان طبعا وحاجر تودن كان إن وحبدا قلد لقى فهم سنة دوين كقار وليبو دوين كتوبيكالك أما دوين كلو يقانا كريمسكا جيرك لمرصدو محالة بها dhaqaatiirtu qoraan marka waxaan jeclahay inaan laba dawo ama laba cream ama laba boomaato soo gudbiyo oo waxa waaye si qaldan loo adeegsado badanaa waxaa aragtaa waxyaabo maxaa la dhahaa soo noqnoqdo qofka caafimaadkiisa ku soo noqnoqdo waliba dumarka adeegsadaan dawooyinkan caafimaadka gabdhaha marka wax badan ayaad arkaysaa yacni iyagoo cabanayo dhaqaatiirta yacni maqaarka ku takhasusay xarumahooda joogaan oo dhahayaan doctore maxaa iga dhamaala finan maqaarkii waxa waaye wuu jilcay wajigayga guduud ayaa ka soo baxayo mar walba mana ogo dawadan inay jirka dhibaatada u geysanayso iyada dawooyinka ay isticmaalayaan marka dawooyinkaas ay isticmaalaan dumarka yacni sida xaddiga aan lahayn ay u isticmaalaan ayaa waxay keenaan dhibaatadaasi ka cabanayaan labadaas dawo waxaa lagu kala magacaabaa labadan dawo halkan ay kaga muuqdaan waaye waxaa lagu kala magacaabaa betamethasone iyo neomycin. Betamethasone iyo neomycin waa labada dawo ugu badan ee adeegsadaan dumarka markay yacni bilaaw ku yihiin isqurxinta ama diyaanada loo yaqaano iscadeynta dawooyinkaas marka iyaga yacni naftirkooda badanaa looma adeegsado in la isku cadeeyo iyaga laakiin marka maqaarka madowga laga soo baabi'inayo ugu horeyso waa dawo xoog badan oo wax badan melaninta jirka ka bixiso oo dhameyso oo maqaarka madowga ka saarto marka gabadhu markay ay rabto inay maxaa la dhahaa adeegsato maxaa la dhahaa inay marka hore intaysan dawooyin waaweyn jirkeeda iyo xididadeeda soo saarayo maqaarkeeda wada cadaan ka dhigayo inay gadato intaysan gaarin ka hor ayay waxay isticmaalaysaa dawooyin melaninteedii dilaayo oo maqaarkii wax badan maxaa la dhahaa baabi'inayo marka dawooyinka betamethasone iyo neomycin waa labada dawo ugu xooga badan ee la dagaalamo melanin sheetka ama waxa madowga maqaarka ka dhigay maqaarka madoobeeyo skinka maxaa la dhahaa yacni maadada madowga u samayso labadaas dawo marka si aad ayaa u adeegsadaan gabdhaha markay bilaaw ku yihiin inay isqurxiyaan ama cadaan raadiyaan ama maqaarkoodii ay bedelaan ay rabaan inkastoo aysan ahayn wax wanaagsan midabkii ilaahay kuu abuuray inaad maxaa la dhahaa meesha isay ka saarto oo aad midab kale aad yeelato marka haddii aan guda galo dhibaatada labadaas dawo ay yeeshaan dabcan labadaas dawo khatarta ay jirka u leeyihiin betamethasone haddii aan ku hormaro betamethasone dhibaatada ay leedahay side effectiga ay ku leedahay yacni maqaarka u geysato betamethasone waxaa jira noocyo badan oo ku yimaada mar ayadoo kaniini ah mar ayadoo topical ah mar ayadoo sharooba ah waa la helaa soo marka badanaa gabdhaha waxay marsadaan betamethasone waxay isticmaalaan kaniiniga iyo sharooba maxaa la dhahaa boomaatada aan cafan topicalka ay marsadaan si maqaarkii ay ugu dooriyaan marka betamethasone riskiga ama side effectiga ama khatarta ay u leedahay maqaarka haddii aad isticmaasho isagoon dhakhtar kugu qorin oo iskaa muddo badan aad u wado khatarta ay maqaarka u geysato daawooyinkan waa la isticmaalaa dhaqaatiirtuna way qoraan wayna ku daweeyaan dadka yacni allergiga la soo gudboonaaday iyo waxyaabo kaloo badana loo isticmaalaa laakiin dhan khaldan ayay bulshadeena u isticmaasho weliba dumarka dhan jaanib negative ayay u isticmaalaan taasoo ah inay yacni ka raadiyaan modification skin cells maqaarkii cellskiisi inay ku qurxiyaan waxyaabo kale maxaa la dhahaa u adeegsadaan marka haddii muddo badan gabadhu ay wado ciladahan soo socdo ayaa la soo gudboonaanayo kow khatarta ay leedahay betamethasone waxaa ka mid a cuncun qofkii maqaarkiisi inuu cuncun saa'id ah sidoo kale maqaarkii inuu u ekaado mid gubnaasho in gabadhii jirkeedii la gubay camal inuu ekaado saddex qallayl dryness inuu maqaarkeedii maqaar qallalan noqdo oo maxaa la dhahaa mar walbo yacni ay raadiso waxyaabahan lubricantska saliida iyo inay marsato ama creams ay marsato sidoo kale in maqaarkii redness gaduudnaasho inuu noqdo maqaarkii uu gaduud noqdo oo maqaarkeedii uu noqdo mid maxaa la dhahaa yacni hilib camal oo gaduud badanaana waa aragtaan gabadhaha labadaas daaman ayaa aad u soo gaduuta markay muddo badan daawooyinka marsadaan betamethasone aan ugu daran waxyaabaha maqaarka maxaa la dhahaa ka dhameeyo maxaa la dhahaa cellska
soo marka meeshii gaduud ay noqonaysaa daamankii waxa arkay oo aad u soo gaduudanaya waay ay daamanka u soo gaduudanayaan labada daan waa meelaha ugu jilcan ay kamid yihiin jirka gabadha ama qofka isticmaalaya jirkiisa sidoo kale xanuun ay keenaysaa meeshii waayo maqaarkeedii waa la dilay melanintii waa la dhameeyey muddo badan ayaa la isticmaalay dawadan oo meesha lagu celceliyey waxaa imaanaysa marka pain ama xanuun ay imaanaya sidoo kale waxaa imaanaya barar meeshii way bararaysaa maadaama dawadan ka xoog badan marar badan lagu celceliyo oo la isticmaalay way bararaysaa meeshii dabcan halkaasi waa khatarta yacni generaalka iska ah betamethasonta ay leedahay kaniiniga marka haddii la laqo oo maqaarkii yacni laga sii gudbiyo oo dhiiggii blood streamka la raaciyo oo dhiiggii maxaa la dhahaa uu jirkaaga gaaro kaniiniga side effectska uu leeyahay waxaa kamid a indhaha oo gaduuto qofkii indhihiisa soo gaduudanaya waayo waxaan waa hore dhiigga raacday sidoo kale waxaa kamid a dawaqsanaasho qofkii uu dawaqsanaana mar walba muddo badan oo dawaqsanaana sidoo kale waxaa kamid a garaaca wadnaha oo maxaa la dhahaa ama siyaado ama yaraado hypertension inay timaado ama hypertension sidoo kale waxaa kamid a fatigue iyo daal iyo badan oo qofku dareemaa sidoo kale waxaa kamid a cuncun badan ay dareemay qofkii gabadhii markay muddo badan isticmaasho iyo sidoo kale qofka mar walba iska ah qof maxaa la dhahaa asidhanba xaaladiisa aysan fadhin oo mood ku jiro oo qof iska caajis dareemayo discomfortable ah mar walba taasna waa markii dhiigga la raacsiiyo oo kaniiniga loo isticmaalo betamethasone halkaas haddaan u soo gudubno neomycin dhibaatada ay u leedahay jirka baniaadamka ama khatarta ay u geysato gabdhaha badanaa neomycin isticmaalo ama u isticmaalo inay maqaarkoodii ku bedelaan ama jirkii ay ku qurxiyaan neomycin horta side effectskeeda ama maxaa la dhahaa dhibaatada ay leedahay waxaa kow ka ah inay maxaa la dhahaa qofkii maqaarkiisa gaduud noqdo ama waa iska agdhow yihiin badanaa wax ay ku kala duwan yihiin ma jiro cuncun sidoo kale finan badan inay soo saarto oo jirkii finan badan ay u yeesho gabadhii maqaarkeedii finan badan oo kasoo baxo skin rash ayaa la yidhaha sidoo kale khatarta ugu weyn ee leedahay waxaa kamid neomycin maqalka oo yaraado hearing loss ama difficulty of hearing maqalkii oo gabadhii maxaa la dhahaa cuslaado sidoo kale kaadida oo yaraato decreased urination ay dhahaan in qofkii kaadidiisa ay yaraato mar walba uu maxaa la dhahaa iska waayo kaadi waa kuwa common ah serious effectska ama riskiska serious riskiska khatarta saa'idka ay leedahay neomycin maxaa kow ka ah gabadha markay muddo badan isticmaasho dawadan ay muddo badan wado maqaarkeeda ayaa waxaa ku dhacaya daadasho maqaarka ay daadinaysaa khatar badan ayay geysanaysaa maqaarka ayay nooc kale oodan aqoonin ka dhigaysaa sidoo kale waxaa kamid a shuban dhaareeya shuban badanaa qofkii lasoo gudboonaanayo sidoo kale waxaa kamid a maxaa la dhahaa waxay isticmaalaysaa muddo badan jirka badan ay muddo badan gashay qofka difficulty of breathing neefsashada oo ku yaraato ayaa imaanayso soo neefta ayaa yaraanayso sidoo kale dawaqsanaan badan ayaa imaanayso qofka muddo badan markuu dawadan wado oo jirkiisa mariyo ama kaniin ahaan u laqo dawaqsanaan badan ayaa imaanayso sidoo kale kaadida ayaa iyadana way yaraysaa kaadida ayaa yaraanayso qofkan isticmaalayay waxaa laga yaabaa in muddo badan uusan kaadin ama aysan kaadi qabaninbo iyo midda ugu dambeyso oo ah fatigue daal ayuu dareemaya qofka daal fara badan ayuu dareemaya qofkii asoon waxba qabanin asoon maxaa la culays badan qaadin ayuu leeyahay waa daalanahay daal badan ayaan dareemaya intaas ayaa ugu muhiimsan labadaas chemical ama labadaas daawo sida indirectga loo isticmaalo sida khaldan loo isticmaalo marka waxaan ku talinayaa mar kale waan ku celinayaa in aadan isticmaalin dawadan sidii loogu talagala maahan si kale inaan isticmaalin haddii dhakhtar kuu soo qoro oo meel maqaarka lagu dawo inta tagto dhakhtar kuu soo qoro ku yiraaho isticmaal markay kuu dhamaato iska jooji laakiin long time hawadin ha isticmaalin iyada naftirkeeda calaamadahan isku arkay haddii aad iska isticmaasho haddii maxaa la dhahaa inaad isqurxiso rabtana waxyaabo badan oo la isku qurxiyo ayaa jira oo dabiici ah please ha isku qurxinin chemical iska ilaali inaad jirkaaga qurux ugu raadiso wax ilaahay kaa xarimo oo ah chemical oo haddana maqaarkaaga sii bedelayo ma qurux badna mana fiicno waxyaabo natural oo qofka isku qurxin kara ayaa jiro mar walbana riskiga ay geysato dawadan waa riski in la daweeyo ay aad u adag tahay waayo wixii jirkaaga waxaa ku dishay chemical maqaarkaaga waa doorisay myelin sheetkii ama maadadii jirkaaga u yeelaysay maxaa la dhahaa midabkii ilaahay kuugu talagalayna
meesha ayaad ka saartay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa fadlan ha iloobin inaad page-keena YouTube channel-keena like saarto page-keena like saarto YouTube channel-keena subscribe inoo dhahdo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa hada wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.